caalamkan aan ku noolnahay ayaa maalin kasta waxaa dhintay in ka badan 160,000 oo qof. dhimashada ma jiro qof sheegaya, qof walba oo inaga mid ah wuu marayaa, ma jiro qof ka badbaadaya. sidaas darteed maanta waxaa idinku soo gudbinaynaa mowduuceena 5 qof oo caan ah oo dhintay sanadiina dhaaftay 2018. ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Ingvar Kamprad waxa uu dhashay 30kii Maarso 1926 waxaana dhintay ninka milyaneerka ah sidoo kale ah aasaasaha shirkadda IKEA 27 January ee sanadiina dhaaftay 2018 isaga oo jiray markaa 91 sano. Stephen Hawking ninkan ayaa dhashay 8 January 1942 ninkan u dhashay wadanka Ingiriiska ahaana caalim fiisigis ah ayaa dhintay 14kii Maarso 2018 sababo la xiriira xanuun uu la dhibaatoonayay ilaa yaraantiisii. ninkan ayaa ku dhintay da'da 76 sano. Ferran Toyer waxa uu dhashay 1 January 1969 waxa uu dhintay Ferran 21 Abriil 2018 asagoo oo jiray 49 sano. ninkan ayaa ahaa markiisii hore actor Bollywood-ka ah sidoo kale waxa lagu xasuustaa filimkiisii taxanaha ee caanka ahaa ee Austin Powers. laakiin muddo kadib ninkan ayaa isku bedelay inuu xiddi ka noqdo social media balse markii dambe uu dhintay sababo la xiriira maandooriyaal uu isticmaali jiray. George Bush waxaan u malaynayaa qof kasta oo inaga mid ah waa uu garanayaa ninkan. waa madaxweynihii hore ee Mareykanka. waxa uu dhashay 6 July 1946 waxa uu dhintay 20kii November ee sanadiina dhaaftay 2018. ninkan ayaa dhintay kadib markay 8 bil ka soo wareegatay dhimashada xaaskiisii Barbara Bush. Anthony Bourdain waxa uu dhashay 25 June 1956 waxa uu ahaa cunto kariye caan ah macnaha cook. waxa uu dhintay 8 May ee sanadkii hore 2018 isaga oo jiray da'da 61 sano. ninkan ayaa caan ka ahaa mid ka mid ah barnaamijyada cunto karinta ee ka soo gala TV-yada laakiin nasiib xumo waxa laga helay isaga oo meyd ah mid ka mid ah hoteelada wadanka Faransa.